marka aad dareento in aad u baahan tahay in aad kulan ciyaareedka la qaadato lamaantaada nin yahow hore ha ugula degdegin in aad ka dalbato in aad ciyaarta bilowdaan. waxaa suuragal ah in lamaantaada aysan nafsiyan diyaar u ahayn. haddaba doorkaada ayaa la joogaa nin yahow in aad xariif iska dhigto. tallaabadan samee, waa hubaal baashaalka idin dhex mari doona. marar badan waad u macaasan doontaan. u muuji in aad doonayso in aad rabto in aad soo qubaysato, iyadana aad ka doonaysa in ay saabuunka kugu daligto. markaa kadib u sii jiid dhanka barkada qubayska, halkaasna ha ka bilowdo musalsalka yar ee romantiga ah, kaasi oo ka bilaabanaya kaftan, qosol iyo in biyaha la isku fardhiyo ilaa ay dharka iska bixiso ayna kula qabaysato. waxaana halkaasi ka bilaabanaya isugu daligidda saabuunta. waxaa jira dad badan oo aan ka fekerin qubayska ka hor galmada, taana waa qalad. keliya waxa ay u haystaan in la isaga baahan yahay uun kadib ciyaarta sariirta. qubays uu ku dheehanaa kaftan iyo qosol idin xasuusiyey maalmihii koowaad ee guurkiina. isku day markan in aad kula dhex ciyaarto gudaha biyaha, adiga oo ku ciyaaraya timaheeda, xabadkeeda, dhabarkeeda. baashaalkaasna waate ilaa aad ka aragto in shumicii indhaheeda uu sii daciifayo. hana joojin baashaalkaas ilaa ay ka gaarto in niyadeeda ka tiraahdo alla marle mukaa codsada in uu weerar ka soo qaado. marka aad jirka iska qalajisaan, u muuji oo xabad u jiifyo, una sheeg in aad u baahan tahay xoogaa yar oo riixitaan ah. hana iloobin in aad adna u karamayso. intaas kadib isku day in aad ka soo xabadgeliso dhanka dhabarka. haweenka aad ayay u jecel yihiin in laga soo xabadgeliyo gadaal. markaas hadal yaro oo xamxam ah ugu sheega dhegta ilaa ay la xamtaxantooto. isla markaana markaas waxaad fursad u helaysaa in aad barideeda ku ciyaarto. ha u qaadan in aad intaas ku kicisay. marka halkaas aad marayso, iyada weydii qaabka ay u rabto in aad u baashaaliso. u ogolow in iyada doorato habka ay u rabto baashaalka ilaa ay gaarto heerka kacsiga lala dhereero. haweenka qaarkood waxa ay aad u jecel yihiin in laga xantaxanteeyo dhanka xubintooda ee ha ka labalabeen in aad ka dhunkato kuna ciyaartid. lagama yaabo in ay ku ilowdo ilaa geeradeeda, waa ay ku xasuusanaanaysaa. marka ay dhammaatay ciyaarta, hore jiifka ha ka aadin ee u mahadceli lamaantaada oo xoogaa sii baashaali. markaas ayayba haweenka raaxo ka mactii hore helayaan. hana u qaadan in ay la mid tahay weel dharagta la isaga bixiyo. mar walba haweeneydaada ama xaaskaada u sheeg in ay aad ugu mahadsan tahay sida quruxda badan ay howsha ugu fuulisay. dheh mahadsanid. waxa ay dareemaysaa in ay haysato qof ku qanacsan. laakiin haddii aad samayso marka howsha ka bogato aad iska sii jeesatid, ma noqonaysa mid aad u wanaagsan. mahadsanidin, fikirkaaga waa muhiim. kadib